keene mudanow macalinow magacaagu weyna masabkaagu dheera manfacaagu badana mulki iyo mahigaan mira ubax laha mawjadaha maanta buuraha maquurshe marag aan u baahnayn aan mariyo maantana macalinku jahliga diid mugdi oo idil fogee murti oo dhan kaalmee maqal u kordhiyey dhagihii maskaxdii mataaneeyey u dhig meel xasuustii kuleyra muuta socodkii maya lagu daro lugihii meel fog iyo meel dhow bal maaleeya midka dhow mansab sare aqoonkee mayalka cilmigaadkee maya yiri cawaannimo mawji dadnimada wacan ku milmeen malabniyadii carabkii macaanee moorada samaantana ku mareeg maqaarkii muhashada ilayskana maankoo dhan gaarsii majaraha iftiinkana malkadeeda taabsii majarafadaha mugood kolba maaxda oon dubin taariikhda noogu miis maalmo tegay noo sheeg bulshadana maamuus meheradahana kaafiyey mufti iyo muhandaskaan mijaxaab iyo cudurkii noloshana muftaaxeed midigtaada kuu saar ubadkii maqiiqdeen u tilmaamiyey maqaam sare been qaawanuu mura ku mashqiiyey madasheed runtana ku meeray qurux hubin mariye xariir badan majliskee mootagee mahadhooyin laga reeb mirir kastaba maaree himiladana murgin waa mintidnimada heerkeed marna hooska mari waa musuq maasuqa diidyo malafkiisu waa dahab maskaxdaasi manfaca leh marag aan u baahnayn yaa mudici noqon kara yaa ceeb marmarin kara mahadsanid yiri dareenkii kaa maarminayne mahadsanid macalino mudnaan macalin baa leh mugdigiiyo iftiinkiyo munkarkiiyo macruufka ma ay wada ekeenay maasha allaahuye munazalka qur-aanka midaas marag kacaaye muwaadiniinta oo idil midkay ka aflaxaayeen mudnaan macalin baa leh mawjadaha aqoontiyo mirihii ka soo baxay midigtaan ku haynaa mufti caalimaayo maahir muhandisa madaxdii wax maamusha murqood ma maaline muwaadiniinta oo idil midkay ka aflaxaayeen mudnaan macalin baa leh maraakiibta quusta miiga duula meel sare marshadooda kuwii hayay militari ma jeestee meeleeye maatada musuq aanan ogoleen muwaadiniinta oo idil midkay ka aflaxaayeen mudnaan macalin baa leh mashxarada arooska midkuu eebe ka uumo markuu miimka karo maskaxdiisu bislaato malcamadii qur-aankiyo muwaadiniinta oo idil midkay ka aflaxaayeen mudnaan macalin baa leh madaalaha abwaanka masaxayay murugtii malaayiin kunoo bayd maskaxdiisu qaaday markuu maago maansada murtidiisu wacan tahay muwaadiniinta oo idil midkay ka aflaxaayeen mudnaan macalin baa leh milkiilaha mashruucyada maalqabeenka muxsinka masaakiinta quudiya midigtiisu furan tahay muwaadiniinta oo idil midkay ka aflaxaayeen mudnaan macalin baa leh mashaa'iikhda masallaha masjidkiiyo minhaajka mutaankoodu uu yahay maalintiiyo habeenkii majliska ahaadaan malaa'igta xusaysay muwaadiniinta oo idil midkay ka aflaxaayeen mudnaan macalin baa leh matacbada barweynaha ma gudbaha ka sii daran markay soo majeertaan maseer uu madaxa qaado maqaankoodu kor ahaado mataalkoodu sareeyo muwaadiniinta oo idil midkay ka aflaxaayeen mudnaan macalin baa leh maalmuhu milkiya mudan kalmuunad wacane midaan hadda joogno madi weeye sheegan qaayo lagu misaalay milkii saxda ahaa halkii aan ka marnaa madashaan u qabanay waa macalimiinteen maa sacab tuntaano marxab aad tiraahdaan mahadda idinkaasee baruu ama macalinku waa haga bulsho soo saara miro tayo iyo waxtar leh sanad kastana soo saara milyuumaad arday ah kuwaas oo dalka kusoo kordhiya hal abuur fursad horumarineed waxaa dhakhaatiir injineero arkaysa duuliyo diyaarad iyo madax hogaamiye waxaa soo saaray oo soo waxbaray waa macalimiinteena basharkii aadmiga oo idil way wada xushmeeyaan sababtuna waa risaalada ay sida wanaagsan u horseedeen macalinku waa tababaraha dhabta ah ee leediga aadmiga si loo helo dad dhisan dunida wax la qaybsada oo la soo baxa habnololeedkooda mudnaantu macalinku leeyahay ma ahan wax halkan kusoo koobi karo
inaan bartaan soo istaago aan aragtideena cabirno waxaa dadaalka ama hibadaas noo yeelay waa macallimiinteena Rabbi ha karaameeye macallimiinteena waxaan leeyahay sidaad noogu hagarbaxaysaan aqoontiina noogu huraysaan noogu heelantihiin markasta aad u taagantihiin awaalkiina dumi maayo waad karayn doontaan ardaydana waxaan leeyahay ixtiraamkii qadarinta maqalkii iyo xushmeynta markasta aynu ku dadaalno si aynu u miro dhalino juhdigeena hooyo ilaanta adduunyadu hubaashii habeenka ma baxdeen oo iftiin lama helaano dadku uma hayaameene xidigowd ka lulataa sidii haad ma fuuleen dayaxeega jooga hubka laguma tuudheen hawo laguma gaadheen cirka hirarka muuqdaa hooyo ay adoomuhu halkay cirka hirarka muuqdaa ruuxa hagaysiyo usha midaad u haystaba ilintoose weligood ka habaabi meese hooyo ay adoomuhu halkay maanta joogaan adigoo horseedoo gaarsiiyey heerkan intahanad ximbaartaad aaneedka siisaad horadada jaqsiisaa habtay baan tiri iyo xisaab lagu heli karaynin hooyoy macaaney waxaan kuu rajeeyaa maba heli karaayee halkaa adigu mudan tahay waa hoyga jannada ee Rabbi kuu hibeeyo weligaa halkaa joog aabuhu hubaashi geed harcala weeyaan hooqda kaa ilaasho kaa dhowro hadimada koriinka u heelan dhammaan waalidiinteena Allah karaameeyo siday noogu dadaaleen darajada ninkii ii unkoo dunida ii taagay saaxiibkii doon ii raroo nolosha ii daaray dembigiis la dhaafiyo ducan ku aqrinayaaye aaba dunidu waa nacas wadkun waa daf iyo miriq aakhiro doorkii jannadii firdowsa daaro badan ka yeelo darajadana ambiyadii docdiyo deerka ka agseexo dembigaagii hore kii dambiyo qaladkii kaa daatay deeqsigii raxmaankaa dhammaankaa dahiri aabbo doontaad ii dhistiyo darajadiiyo maalka diintiiyo akhlaaqda dacwadii waan daldalayaaye daayinkaa awaalmari intaad nolosha ii daartay aabbo doogso dalagii jannadiyo miraha soo daadso doc kastana ka aadoo jannada daaro badan yeelo xoog ugu shaqee guushaaduna ha samayso dhawaaqa haddii aad rabto inaad hesho waxaanad weligaa hore u helin waa inaad samaysaa waxaanad weligaa hore u samayn farxadda ugu weyn adduunka waa qabashada waxay dadku ku yidhaahdaan ma qaban kartid webiga kuma jiro dhagaxyo awoodiisa balse wuxuu ku jiraa adkaysigiisa socdaalka kumanaanka meel ahi waxa uu ka bilaabmaa hal talaabo waxaad guuldaraysataa oo keliya markaad joojiso isku dayga guulaystuhu waa qof riyooday oo aan weligii quusanin haddii aanad weligaa guuldaraysanin weligaa wax cusub iskumaad dayin dadka daciifka ahi way argutaan dadka xooggani way cafiyaan dadka caqliga badanna way iska indhatiraan haddii aanad riyadaada ku gaarka ah dhisan qof kale ayaa kuu shaqaalaysiin doona inaad riyadiisa la dhisto guulaystayaasha maaha dadka aan weligood fashilmin balse waa dadka aan weligood quusanin howlaha aad inta ugu badan ka fogaataa waa kuwa ay ku jiraan fursadahaaga ugu weyn ka bilow halka aad joogto isticmaal waxaad haysato oo qabo waxaad qaban karto weligaa ha quusanin bilaagu badanaa waa waxa ugu adag noloshu kuma siiso waxaad rabto waxay ku siisaa waxaad shaqaysato ee aad u qalanto waxa ugu fiican ee aad noloshaada samayn karto waa inaad naftaada aaminto weligaa qofna ha u sheegin qorshayaashaada taa beddelkeed tus natiijooyinkaaga waxaad heshaa waxaad shaqaysato maaha waxaad rajayso adiga oo keliya ayaa beddeli kara noloshaada qof kuu beddeli kara ma jira maalin kasta oo cusubi waa fursad cusub oo aad ku horumarin karto noloshaada ka faa'iidayso guushu waa isku geynta dadaalo yaryar ee aad ku celceliso maalin walba habka ugu fiican ee aad ku bilaabi karto waa inaad joojiso hadalka oo aad bilowdo qabashada guushu kuu imaamayso oo ku soo heli mayso waa inaad baxdo aad adigu heshaa maanta qabo wax naftaada mustaqbalka kaaga mahadnaqi doonto ha sugin fursado adiga abuur fursadaha dejiso hadafyo waaweyn hana joogsan ilaa aad halkaa ka gaaraysid weligaa guulaysan maysid haddii aanad weligaa bilaabin markasta samee waxa ugu fiican ee aad samayn karto waxaad hadda beerato mar dhow baad goosan doontaa maalmaha adagi waa waxa kaa dhiga qof xooggan waxaad heshaa waxaad diiradda saarto haddii aanu qorshuhu kuu shaqaynayn beddel qorshaha balse weligaa ha beddelin hadafka qodob
qodobka ugu xooggan ee guusha waa kalsoonida nafta aamin inaad qaban karto aamin inaad u qalanto oo aamin inaad heli doonto si aad xaqiiqada u bedesho waa inaad bedeshaa hab fikirkaaga si aad u guuleysato damacaaga guusha waa inuu ka weynaadaa ka cabsashada guuldarada dadka qaar waxay ku riyoodaan oo keliya guusha kuwa kalena way kacaan oo way gaaraan haddii aad rumaysato shakiga ku jira maskaxdaada gaari maysid riyooyinka ku jira qalbigaaga guusha kama timaado waxaad marmar keliya qabato waxay ka timaadaa waxaad si joogto ah u qabato guuldaradu maaha cagsiga guusha balse waa qayb ka mid ah guusha weligaa ha qaban biri waxaad maanta qaban karto isku darka horumar yaryar oo aad maalin walba samayso ayaa keena natiijo weyn weligaa ha quusan waxyaabaha fiicani waqti bay qaataan samir yeelo من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا غلاما فقتله قال أقتلت فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة غرقها قال أغرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله